gaalkacyo Soomaaliya waxay noqotay magaalo ay ku dagaalamaan laba beelood oo walaalaha oo wadaaga Soomaalinimo, Muslimnimo, dhaqannimo waana hal qoys oo dhan walba isaga yimaada marka laga soo tago Soomaalinimada. Cadawga Soomaaliyeed waa uu farxad dagaalkan saameynta ku yeeshay qoysas badan oo isugu jira haween, waayeel iyo caruurba. Isbitaalada ayaa la geynayaa dhaawacyo dad aan waxba galabsan. waxa magaalada gaalkacyo ka barakacaya qoysas badan oo aan waxba galabsan waxayna madaafiicda iyo waliba rasaasta aan loo meeldayin ay ku dhacaysaa caruur, haween iyo waliba dadka waayeelka ah kuwaas oo meel banaan ah magaalada ku haysta nolol xumo, cunno la'aan iyo waliba biyo la'aan. Hadalaankana waxa soo wajahday waxbarasho la'aan, caruurta yaryarkana oksijiin la'aan ay isbitaalada ugu geeriyoonayaan. labadii December ee sanadkii hore 2015 ay ahayd heshiis ay gaareen madaxda maamulada Puntland iyo waliba Galmudug kadib markii uu dhex maray dagaal isbuucyo socday. dagaalkaasi ayaa waxa ku geeriyooday shacab badan, hanti badanna waa ay ku basbeeshay. hooyooyin badan ayaa asaydii loo saaray wali kama dhaqan, waxaana taasi ka darnayda ma jirin wax magdhow ah oo la siiyay qoysaskii dadkoodii sida macna darada loo laayay. madaxdii Galmudug iyo waliba Puntland gaalkacyo ayay ku shaaheeyeen, waliba waxa goobta kula shaaheeyay saraakiil igaabahay iyagoona faraxsan ayay warbaahinta la hadleen. madaxweyne Guuleed muxuu ka yiri xiligaasi? maanta farxad gaar ah inoo tahay, waa sansaan horumar, waa sansaan isdhaxgal, waa sansaan walaalnimo iyo wax wada qabsi iyo iskaashi. waxaan aad iyo rabaa inaan hoosta uga xariiqo inuu mahad celiyo walaalkay Cabdulle Cali Gaas oo igala hormaray inuu isdhaxgalkii asaga bilaabay oo dhinacan kale u soo talaabay. anigana insha Allah taala waxaan ballan qaadayaa intii maanta inaan dhinaca kale u talaabi doono oo dhinaca kale tagi doono. waxaan rabaa in dhagdheer dhimata meesha ay ka dhacdo, dadku haddii colaad dhaga qaadeen inaan colaad jirin in la arko. madaxweyne Gaas ayaa isna dhankiisa hadlay, muxuu yiri? dad badan baa isweydiin waxay leeyihiin nimankii wada fadhiyaan waa sheekaysan oo qoslayaan, dadkiina waa dhinteen. wax Ilaahay qadaray bay ahayd in dhibaatada dhacdo, midaan ku talagalay ma ahayn, midaan filayna maysan ahayn. waxaas ka soo xumaan lahaa inaan aniga isaguba intaanu godgallo aanu dhibaatada sii hurinaa ka soo xumaan lahayd oo in badan oo inta dhimatay ma inta kalena ay raacdo in ayagu ay cudud isu noqdaan meesha ayagu cudud isu tijaabin lahaayeen in ay cududda iyo cadawga Soomaaliyeed ee kale ee wafrada tirada badan oo ogtihiin oo meel walba jooga inay iska kaashadaan weeye. diyaar baan u nahay marka inaanu wada shaqeyno aniga iyo madaxweyne Cabdikariin. heshiiska 2 December ee sanadkii hore dawladda hoose Istanbul waxa ay bilowday dhismo wado hoos maraysa dhulka hoostiisa, waxayna soo gabagabaysay 5 October ee sanadkan. waa xilliga uu bilowday dagaalka walaalaha ee Gaalkacyo inta u dhaxaysa labadaasi taariikha. waxa lagu dhisay wado markiiba ay marayaan kumanaan ruux, waxaana xariga ka jaray madaxweynaha wadanka Turkiga Mr. Erdogan. walaalaha Gaalkacyo waxa ay garan waayeen waxa uu gartay duqa magaalada Istanbul, Ambassador Afey oo ahaa wakiilka IGAD ee Soomaaliya xiligaasi ayaa runta u sheegay Gaas iyo Guuleed. Soomaaliya hadiisan la helin Prime Minister cid shacabka intay hasuuqda haddana la xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar u soconaa. waa laazim beesha caalamka inay Soomaaliya ku tiragasho. dad baa jira Hague waxay jiraan maxkamadaha Hague Afrika ay kamid yihiin, maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeyo. maxay ku dhacday Soomaaliya in hal noolin qof ummadda intuu hasuuqo haddana shacabka iska dhex soconaysa caadi ah? dawladda federaalka inay arrintaas hogaamiso ay codsato. there is no way we can allow impunity to continue, Mr. Prime Minister. this is impunity day in day out. maanta waa Gaalkacyo, berri waa Kismaayo, maalin kale waa Beledweyne,
shacabka meeqaasanoo la laaynaya yaani mas-uuliyadda qofka la laaya qaadan doona inay qofkaa la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urur goboleedka igaad aniga waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maxaa yeelay maalintii qof Soomaali maxkamad caalami la keena xasuuqan wuu joogsanay aan hubna laakiin maalintii caadi iska noqoto in shacab la barakiciyo magaaladan magaalo booming bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadooda ka qaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin ina garriin kuwa dhintabaaba la gartay Allah u naxariisto hadda kuwa dhibaataysan u maqan markaas qolka soo gashaan wajiin markii la fiiriyo muruga ka muuqata waad wada hanaaqsantihiin yaad u hanaaqsantihiin yaad ka hanaaqsantihiin xildhibaanada iyo wasiirada maamulada Puntland iyo Galmudug iyo madaxweyne Guuleed iyo madaxweyne Gaas intooda mid ay dhaleen ma joogo magaalada Gaalkacyo qurbaha ay nolol sareysa ay ku haystaan waxa la barakicinayna waa dad rayid ah oo aan waxba galabsan Salman Jamal Saeed TV caalamiga Universal magaalada Istanbul.